بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا من القول والعمل الصالح لما تحبه وترضاه، اللهم آمين. سومالي ويني وادي سلامي سلام كديب الحمد لله. الله ما هذا رسول أنت هاي سومالي ويني فرين تدين وحيكون سعوتا قف والبا أو مجا سوماليات كأبتر سنايا إنه دقيستو oo kadib bal wixii isaga kala gudboon oo markaas ka qaato insha Allah. Soomaaliya waxaad la socotaan waayahan dhanba in la warwareejinayay Ethiopia inay rabto baddaasoo ay businesskeeda ama ganacsigeedana ka dhoofsato kay iyadu u baahan tahay inay ka soo dejisato. Soomaalida waxay ku mahmaadaa doqonta usha waa lagu agdhuftaa, hadday dareemi weydana iyadaa lagu dhuftaa. maanta waxaan noqonay doqontii usha lagu dhufanayay. Ethiopia siday marba hadalka u lahayd aakhirka u dambeysay waxay ku soo gabagabaysay waxaan u baahanahay badda Saylac. horeyna waad u maqasheen ra'iisul wasaaraha Ethiopia inuu yiri xataa haddaan xoog aan ku helay waa kula wareegaya baddaan raba kula wareegaya. marka Soomaaliya maxaa inala gudboon inaga? waan aragnaa oo hujuum baa leenugu soo qaaday, waan aragnaa oo waa leenugu soo maqan yahay, waan aragnaa oo waa laynoo tashaday. ma iska huruudnaa oo sidaan aan isaga huruudnaa inta maalub dhulkeena lala wareegayo? 2 sano ka hor waxaad la socoteen Kenya inay iyana hujuum soo qaaday oo badda ku soo qaaday Soomaaliya, laakiin alxamdulillah laga guuleystay. maantana Ethiopia taagan oo laana markay kan tijaabinaya Soomaaliya inagu ma tijaabo uma ku jirana maalub la tijaabinayo goormaan ka gudbanaa heer la ina tijaabiyo. Soomaaliya waxaan leeyahay maxaa inala gudboon maanta maadaama hujuum inugu yimid, hujuumkaasna la raba in laga run sheego. inaga wadada inala gudboon inaan qaadno maxay tahay? waxa ay tahay number 1 waxa inaga dhexdeena aan isku haysano, khilaafka dhexdeena inoo yaala, wax alla waxa dhexdeena isku qabno intaan duuduubno inaan meel dhigno, inaan u midoono danteena caamka ah, inaan ilaashano magaceena Soomaaliyeed, inaan ilaashano wadankeena, inaan ilaashano badaheena, inaan ilaashano xuduudaheena. taasaa inoo muhiima. markaan saa samayno oo taa ka mira dhalino, markaa kadib baan u soo noqon karnaa wixii khilaafaad dhexdeena yaala iyo maxaan ku xalin karnaa inaga taas. waayo wixii dhexdeena yaala waa waxaan xalin karno, laakiin wixii banaanka inooga yimaada waa wax u baahan midnimo iyo gacmo isqabsi. shay walba oo loo midoobana waa laga mara dhaliyaa ilaa intuu raba ha qaato. waxaan leeyahay Soomaaliyeed midnimaan u baahanahay maanta, wadankeena iyo ilaalintiisa inuu u midowno, qarankeena iyo ilaalintiisa inaan u midowno, badaheena iyo ilaalintooda inaan u midowno baan u baahanahay. ma samayn karnaa taas? waan samayn karnaa. Soomaaliya marka muhiimadeena waa inaan midowno, haddii kale waxaan noqonaynaa sidii 3 dibi ee libaaxa u tashaday oo kale ee iskuulaadka lagu soo dhigan jiray. dibigii caddaa, dibigii madoobaa iyo dibigii guduudnaa oo libaaxu intuu soo hujuumay waxba ka qaadi kari waayay. uu u tashaday oo uu ugu tashaday inuu kala googooyo, kadibna mid walba markiisa cuno. kii caddaa uu ku diray labadii kale, markay cayriyeen cidla isagoo taagan uu cunay. labadii kale kii guduudnaa intii kii guduudnaa ku diray, markuu cayriyena uu kii madoobana saa kusoo cunay. kii guduudnaana subaxii dambe libaaxi oo faraxsan ugu yimid oo uu yidhi maanta imaadan cunin, laakiin waxaad cuntay maalinkii aad dibigii caddaa cuntay. intaysan inugu imaanin kan idulminaya ee i qabsanayo maanta imaadan qabsanne, waxaad i qabsatay maalinkii gobol hebel aad qabsatay baad i qabsatay. intaysan ugu imaan Soomaaliyey indhaheena aan kala furno waa hurudnaaye. indhaheena intaan kala furno war takhdiidka iyo tallaabada iyo xarakaha uu cadowgan isku xirayo aan fiirino. wixii inaguna marka aan uga jawaabi lahayn aan sii diyaarsano. haddii kale waxaa dhici doonta
maanta imaadan cunine maalinkii dibiga cadaala cunay baadi cuntay wallahu li tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.